السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليك قالي قاعدة ما أنتي وإذن سلامي ميلو البؤدونك أكيد جوكتانو ولا شيء مهاروني مركلتوت بليز كنالكي قدا كيش سبسكرايب لايك كومنتي قدي رجلين توا حقينا إن شاء الله مروا البقصة دي يرو ليا ونسو بنايا إذن لو ذاقايا أذن كان يقول دي رجلي إن شاء الله إنا مروا البصص وقصو صدوبة قصة أنا سيدان أيوكو بالله ونسا قصة وحيد عضي سيدي دي بالشلحات لو كون لحي تبانكي مردوان dhageysta qisadaanita adiga marka waxa isla maadaama ay qiso xoogaa muruga la tahay oo hooy kartida hooyada ay ka hadlayso soo gudb walaalaha qisadana marka sidan ay ku bilaabanaysaa sida normalka ah nin inaaga is guursadeen ayagoo is jecel markay is guursadeen kadib isla markii wiil ay dhaleen haddana isla markii waxay kadib haddana wiil kale dhaleen marka hooyada ilmo dhalaysay guriga ku haysatay ma shaqeyneen marka aabaha kaliya shaqeyn jiray aabihii ileen deemanow galay wax walbo wuxuu rabo iska soo qaadana maxkamada loo diray deemankii ku batay maalintii dambe asagoo la qaban rabo oo ogaaday oo ka dhuntay naagtii wuxuu ugu dhuntay hooyadii laba ilmood oo yar yar ah iyo deen marka Yurub marka ku nooshahayne sharciga yaala waxay tahay ninkii iyo naagta isqabo hal waaye lacagta hadii la waay qof kamid ah qofka kala laga qaada hadii isqabaano hadeen isqabin qofku soo daba galay malahan marka woo ka dhuntay kadib ayadii la yiraahday lacagtan keen ninkana lagu lahaay ayadana ma ogeey markaas waa ku bariyay markaas kadib shaqo raadisay shaqay soo heshay ilmihii dhinacay ka korinay maxay ahayn shaqadii way aaday deemankii way magaysaa hooyadii alxamdulillah nolosheeda hore sida ugu sii socotay wiilasheedii way korsatay ayadoo mid 15 meelaas ila 16 jiro midna 17 adii labadooda 18 mid gaaro kuma jirin labadoo iska daba dhalatay ahaayeen marka ilmihii ayadoo sidii ah ay aabihii maalmaha kamid ah oo soo laabtay hooyadii albaabka la soo garaacay hadii ka furtay waa asigoo albaabka taagan waa kana ninkii oo calaayo maxay ahaa iska kii cafi adiga iska kii cafi markuu yiri way cafisay noloshii hadana meeshii mar labaad nolol labaad ka furteen ayagoo sidii iskaga nool maalmaha kamid ah wax yar ay murmurmeen odigii waa orday jikada loo tagay midi loo kala soo baxay 7 midi oo ku dhuftay hooyadii inta nafta ka bixaysay ku dhufanay alshan toreyn ma midiyaan oo jikada aan u isticmaalno markii dambe hooyadii sidii ku dhimatay dariskiya marka waxay telefoonka u soo direen wiilka weyn waxay ku dhaheen kaale soo orod gurigiina ambalaasa hor taagan ma naqaan waxa ka dhacay haddii wiilkii guriga imaado wuxuu arkay hooyadiisoo korkii dhan wada dhiig iyo wuxuu arkay ambalaastio sii qaadayso wuxuu kaloo arkay aabihii oo booliiska gacmaha ka xireen qaybta kale wadana aabiyaa taaganba oo booliiska gacmaha ka xireen wooyaa wiilkii wuu naxay wiil yaroo welina qaan gaarin oo 18 sano gaarin oo waxyaabahaas arkay wuu ka naxay hooyadoodna aad ay u jeclaayeen marka wiilasha marka soo dilay wiilkii kale wacay wiilkii kale imaaday hooyadii meedkeed waa la qaaday sidii lagu aasay aabi xabsi oo mutaystay xabsi daa'in wiilashii marka way weynaadeen ayagoo weynaadeen hadda 2021 ee telefishinka ka soo daayeen because 16 sanado badan ka soo reegatay jahad way niman qangaar waaweyn noqdeen oo shaqeysto laakiin waxay dhaheen hooyadan aadan u jecleen qaabka arxan darado aabeen u dilay aan ka naxnay qisadina sidaas ay ku dhamaatay wiilashiina hadda way aabood way diideen inay la kulmaano xabsiga ay kula kulmaano markasta aabaa codsi soo dhiibaa wuxuu leeyahay wiilasheediyo iga raali noqdo waa qaldame hal yacafiyo laakiin wiilashu way diideen inay cafiyaano aniga fikrad ahaanteeda aabahaas oo kale maba mudnaba in la cafiyo ani ahaanteeda ma ila mudnabo ee adiga fikradaada ka soo dhiibo aabahaas oo kale ma cafi lahayd aaba adoo yar ka tagay oo hooyadii ku soo rafaado waliba deen asoo lagu leeyahay oo deentiisi la magay ee hooyadii ku soo rafaaday ee ku soo korisay kartideeda intaas kugu soo gaarsiisay haddana gacantiisa ku dilay aabaas aniga ma cafi laheenin ee ani ahaanteeda woona mutaystay inuu xabsiga ku jiro oo ilmana arkin waa wax ku fiican oo maxay ahaayeen abaalkiisa waaye adigana fikradaada ka soo dhiibo yaa qaldan hooyada soo dhaweysay maadaama ninka hadda ka hor xumeeyay qalad ma yeelan karto ani ahaanteeda qalad ma yeelan karto adi marka dhinacaaga waxay fikradaada ka soo dhiibo commentiga insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.